guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise maamulka dawladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley aana guddi hooseedyada golahaasi kulankaas oo ka dhacay xarunta dawladda hoose ayaa waxa laga wada hadlayay sida ay maamulka degmada Gabiley u maamulaan hantida qaranka iyagoo warbixinana ka dhageysay mas'uuliyiintaasi waxaana ammaan xad dhaaf kula dulkufeen gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley ahna duqa caasimada gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi xafiiskii dawladda hoose nagu soo booqday guud ahaan gobolka guddida ilaalinta hantida qaranka waa arkaysaan xildhibaanada nala jooga oo ah runtii guddi firfircoon oo maaragtay mas'uuliyiintii goobta joogta dhammaan hambalyeynayaan shaqadooda anagana gobol ahaan intaan jooga anigu muddadii sanadka ahayd waa markii labaad aan mas'alagno ay guddidaasi goobta noogu timaado oo in maaragtay gelingelayso ina baadho oo in su'aalana weydiiso runtii aad baan uga maaragtay hambalyeynayna waxaan arkaynaa doodayadii hore kulankii hore isagoo buugaaba inay sidaan marka waxaa dad active ah oo firfircoon oo maaragtay wixii ay qaadanayaan aan ahayn wax oral side sidii shacabka Soomaaliland ku baranay waxaan marka la wada hadlayo taageeray inuu qoraal soo baxayo taasina runtii anana runtii wax miisaaman oo taariikh ka tagi doonta aanu niraano aad baan u hambalyeynayna maanta waxaanu ka wada hadlay golihii deegaanka ay la kulmeen maay xigeenkii iyo guddiyadii iyo mas'uuliyiin kale oo xildhibaanada golaha deegaanka ka tirsan waxa la iska wareystay qaladaadkii hore xilligii hore waxa ku arkeen iyo maanta wax isbedelay shalay markay noo yimaadeen waxa golo aan heshiis ahayn oo hadalka maaragtay oo soo ogolayn maanta waxay yimaadeen golo gacanta saysta waxay yimaadeen shalay tolo golo is eedeynaya oo isku eedeynaya musuqmaasuq iyo shaqo xumo xilgudasho la'aan maanta waxay yimaadeen golo ka wada socda oo iska bixinaya si wada jira ama iskaga bixiyay ansixiyay wixii lagu lahaa baaray wixii xalaal ah ay badka soo dhigeen dabeedna ansixiyay cod u qaaday dabeedna iska bixiyay iyo mashaariic soconaysa iyo xildhibaan gacmaha haystay maantana ay arkeen iyagana saasaan ugu mahadcelinaa runtii golaha deegaankana aniguna saasaan ugu mahadcelinayaa barasaabaan oon ku hambalyeynaya shaqada wanaagsan hayaan waxaan ku taageerayaa mar kasta inay wanaag isku ilaaliyaan ma aha inay xumaanta isku raacaan xumaanta la isku wada raaco waxa dhaanta iyadoo la isku khilaafaa dhan waxaan rajaynayaa inay wanaag isku raacaan xumaantana isku khilaafaan mar kasta ayaan rajaynayaa inaan maaragtay dadnimadii walaalnimadu ay naga dhaxaysaa markasta lagu kala tagi maayo laakiin hantida ummadda la wada ilaashado shaqada la wada ilaashado way taariikh waa ka tagaysa dhalinyarada wadno 5 sano 2 sano hadda hadhay guli deegaan marka in lagaga tago wax wanaagsan lagaga tago oo sharaf lagaga tago wassalaamu calaykum waraxmatullahi golayaal la doortay oo baarlamaan leh oo gole deegaan leh oo iyaguna meel u wada socda dawladii dhexe iyo golayaashii la doortay oo iyaguna meel u wada socda afkaarta waa la iskaga hor iman karaa laakiin halka loo wada socdaa waa maxay waa inaynu qarankeena yar curdanka runtii qof walba halka kaga aadan inuu wax ka qabto waxaan runtii golaha deegaanka ugu mahadcelinaya iyagana iyo maayarka cusubba muddada aan wada joognay runtii 3 sano ahaydba taagi meel la dhigtay habeen walba inaan wax qabanno baan doonin habeenba tallaabo inaan kordhino marka runtii dib buuga loogu taariikhda dambe loogu noqdana gadaal baa laga ogaan doonaa bal itaalka iyagu inta doonahaade habeen walba inaanu annaguna dadaalnay golahan runtii baarlamaanka aysan waqtigiisu imika runtii uu gabagabada yahayna iyaga laftooduna way dadaalayaan annagu intii gobolka Gabiley baanu arkaynaa culays ku leeyahay dalka oo dhan runtii culayska saaran iyagana kulli waanu qiraynaa taan waanu garanaynaa haddana marka ka tagaan golaha dambe marka dambe taariikhdiisa la sheegi doona qaranka ee golaha wakiilada waxa aan ustaad aragtaan aan halkan kormeer ku nimid gobolka Gabiley runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa barisaabka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maayir ku-xigeenka oo si fiican ee sharafta badan ee ay noogu soo dhaweeyeen gulahooda aanu uga dhageysanay warbixin waxaan qiraynaa in guddidani waa markii labaad ee ay la kulanto markii hore sanadkii hore markaan la kulanay golaha baarlamaan golaha deegaanka ee Gabiley waxa uu ku jiray golayaashaha deegaanada dalka kuwa ugu hooseeyo ku jiray hadday noqoto maamul ahaan iyo hadday noqoto wada shaqayn la'aan dhexdooda ka jirtayba waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay maanta isbedel ku yimi oo isbedelkaasi aan maanta markaan dhageysanay wax far badan ay u qabsoomeen rajaynayna in inta in ka badan ay u qabsoomo gobol hodan ah waa gobol horumar gaarsiin kara gobolkan Gabiley waa golo deegaan oo wax far badan ka qaban kara oo aan nasiib u helin golayaasha deegaanada ee kala dalku waxaan fuli doonaa insha Allah ta'ala next meeting aan u nimaadno in
ay horumar ballaaran ay gaari doonaan hadduu Eebbe subxaanahu wa tacaala oo ay ku dhaqmi doonaan xeerarka u yaalla ay ku dhaqmi doonaan miisaaniyadda iyagu ansixiyaan waxaa kaloo iyada mudan inaan halkan ka sheego isbeddelkaasi in aanu qayb ka ahayn haddaan golaha haddaan ka nahay guddidan isbeddelka ku yimid Boorame iyo isbeddelka ku yimid Gabiile labadaba guddi ahaan kaalin firfircoon baanu ka qaadanay waxaan ka qaadanay xeerarka ay jibiyaan aanu soo bandhignay wada shaqayn la'aantooda aanu soo bandhignay kalfadhiyadooda oo aan u qabsoomin oo aan soo dhignay baa waxay keentay in ama contribution gelisay in isbeddelkan dhabtii uu labada gobolba waan soo marnay Boorame wii ka horaan joognay Gabiilena maanta waxaan ku aragnay waxa weeye horumar aad u ballaaran labada bilood ee jireen haddii miisaaniyadda noqoto haddii mashaariic noqoto haddii wada shaqayn noqoto la dhayarsan waxa muhiim ah isbeddelada golayaasha deegaanka kale fadhiidka in ay iyaguna tusaale u noqdaan oo ay keenaan isbeddelo cusub ama mid maayar lagu beddelaya ha noqoto ama mid xeer lagu beddelaya ha noqoto ama mid dhaqaalaha lagu kordhinaya ha noqoto ama mid la wada shaqaynaya ha noqoto golihii deegaanka ee fadhiidka noqday mid kastoo ka midiba inuu ku fakaro sidii isbeddel u samayn lahaa si ay gobolkooda iyo degmadooda ay ugu shaqeeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi waxa weeye ilaalinta hantida qaranka ay maanta halkan yimaadeen ay qiimeeyeen golihii deegaanka iyo siduu shaqaynayo waxay arkeen waxay ku farxaan bay arkeen waxay arkeen golihii deegaanka oo u wada shaqaynaya sidii tiimo kale waxay arkeen golihii deegaanka oo diyaar u ah inay systemkii ay halka laga dhaqaaqaa inta badan waxa weeyaan waa nidaamka iyo systemka la samaysto marka golihii deegaanka oo uu maayarku horumar ugu yahay xaqiiqatan in sharciyada la ilaaliyo oo qof waliba wuxuu qiimo iyo credit iyo sharaf ku leeyahay ay tahay in la ilaaliyo systemka iyo nidaamka u dejisan golaha deegaanka oo ka yahay xiroosaadka uu goluhu samaystay xeer 23 qaabilsan ismaamulka gobolada iyo degmooyinkaba intaasiba waa wixii aanu sare iyo hoosba aanu ugu hadlaynaan lahayn waxa weeyaan war lagu hogaansamo systemka kaasana wax ku noqonaay kiiba ayna la arkeen waxa weeye guddidan maanta socotay alxamdulillah waxaan rajaynaynaa in wax naga xumaada aanu jirin oo kolba aan ku jirno in wax noo wanaagsanaadaan taana waxa keenaya midnimada iyo wadajirka ka dhex bilaabmay golaha deegaanka xildhibaan waxaa jirta waxaad ka mid tahay xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye iyadoo inka uu jiro shirweynihii xisbiga waxaa jira loolan adagoo xisbiga ka dhaxsan bal ka waran arrintaasi adigu sideed u aragtaa balse haddii aad aragtaada ka hadasho yaa taageersan tahay nimanka ku loolamaya wallaahi kulley waa run oo xisbi xaakimka ka mid ahay وانا سيد الاعلاميه قدوميوه اعلاميه ان شركي لا قبن دونو كلي كهردغي مايو وانا حسبي مذكره سياسيا مجوره ان سومري معارض سومري ان حكومتينا imaka haya marka xisbi jira oo hadiye jeer in xitaa Soomaaliland inay ku daytay timer walba ama tasoo soo qaataba ayaan rajeynaa kulmiye noqdo waana wax dimuqraadiyadda ka mid tahay in lagu loolamo waxa weeyaan shirarka iyo in musharaxnimadii la helo marka waxaan sugi doonaa waqtigeega iyo goorteeda iyo timekeyga sugi doonaa waxaan u rajeynayaa kulmiye guul baan u rajeynayaa sidoo awalba intuu samadaas la maro haddana uu isla soo dego oo wax walba ay saax noqonayeen marka waan suganaa insha Allah xisbiyada mucaaradka waxa uu arkaan inuu qaybsami doono arrinta adiga fikirkaaga wallahi fikirkaas anu waan ka duwanaa horaan kugu sheegay waxaan ku yiri si fil la tilmaasado la eegto oo ay Soomaaliland oo dhabac kirsan tahay kulmiye la hayaa waana tii waxa weeyaan mar walba in lagu daray tahay sunnaha dawladnimo iyo sunnaha xisbinimada kulmiye laga daynay waxaad soo jeedin lahayd mas'uuliyiinta maanta waxaan soo jeedinayaa waxa weeyaan tartanku ha noqdo mid xalaal oo xor ha noqdo taladii u dambeysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo jeediyay ee ahayd waxa weeyaan almiidaan waasi ana xisbiga kulmiye in lagu tartamo oo si xalaal loogu tartamo oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yiri ayaanu taageersanahay gudoomiyada taas taageersan yahay nin waliba taas taageersan yahay waxaan rajaynaynaa in xisbiga kulmiye uu ku guuleysto mashruuciisa rasmiga ah ee noqdana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aniga xildhibaanada siyaasadda kulmiye